dad waaweyn baynu nahay 10 milyan bayna daawanaya inaan isceebayn alla ina ceebay حلبان عذر حلبان رالله وحلبان كسر وتر حلبان سدام كسر حلبان رالله حلبان عذر حلبان سدام كسر ورك هذا كب هذيك ما جبنا أصلا هذا حلبان هذيك كل ما هذين حلبان عذر واحد نري حقهم اللي هي حلبان ككتاب نري ورك هذا وضعني وادي هذان حلبان كارتيس لو أقولين xildhibaankii hadna laga daba imaanayo la oranayo adoonkaas muxuu leeyahay haddaan aragtidii mana la leeyahay war baarlamaanka sharaftiisa yaan lagu ciyaarin magaaladan uma qalmato baarlamaanku inuu joogo xorriyad kuma dareemaynaan waan maasantiin xildhibaanku xaq buu u leeyahay inuu fikirkiisa cabiro oo wuxuu rabo uu sheego horta marka hore xildhibaano ha la ixtiraamo ixtiraamaa loo baahan yahay haddii uu qaldamo nimankan meesha fadhiya muxuu ahaa baarlamaanka inoo hagaya ee habdhowro leh ee xoog haya leh ayagaa mas-uulka oo ka joojinaya oranaya waxaad ku socotaa wax khalad ah qofka u baahan xildhibaan inuu fikirkiisa mucaarado ama ka hor yimaado ama uu la qaldanaado wuxuu qaadan karaa point of order saaxiibayaal waqtigu uu dhamaaday horta aan nabad isku macsalaamayno mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh meeshan waa baarlamaankii Soomaaliya xildhibaanku inuu ra'yigiisa ka hadlo oo aan lagu qaylin oo la aamuso oo la dhageysto xaq buu leeyahay markii hadalkii batay oo awalba la sheekaynayo meel walba laga qaylinahay xildhibaankii aqrinaya wuxuu yiri magaaladan Muqdisho ma astaahayso meel baarlamaan lagu qabto qofkii gab ka tirsanaya si gabay halkaas uu tagay noonu yaqaan buu la hadlay waa la dareero waa laga baxay haddaan guddoonku uusan tallaabo ka qaadin oo aan la oran maxaa keenay sababta meeshan yaan siyaasad la gelin xildhibaanku warkiisa inuu dhamaysto xaq buu leeyahay qofkii la murmaan in laga aaminsiyo weeye laakiin wuxuu ku jawaabo waa maqlis magaaladan ma astaasha baarlamaan lagu qabto ulajeedadaasaan rabnaa in la ogeysiyo loo yeero oo la yiraahdo maxaad warkaa u tagay magaaladaani iyadu ma oran baarlamaanka lagu qabto marka waxyaabaha dadku danaha gaarka ay leeyihiin yaa anaga nala marin ee wax walba anshaxooda hala mariyo assalaamu calaykum waxa haboon qofku aragti buu leeyahay aragtidiisa inuu dhiibto lagu ixtiraamo la tixgeliyo warkiisana la naqdiyo si ixtiraam ku jiro iyadoon la isu geysanaynin aflagaada iyo dhaawactoona sharaf darro iyo karaamo darro ay nagu tahay maqaaxiyaha suuqa loogama sheekeeyo sida baarlamaanka federaalka Soomaaliya looga dhex sheekeeyo waa xaqiiqo weey aan xishoono aan maskax isku yeelo waxayna daawanaya 5 million 7 million Soomaaliya ina maalin walba qaylino for no apparent reason adigoon context ku hadlayn ama xeerka laga hadlay aan ku hadlaynin oo hal abaan ka soogayn soona akhriin inaad naqdido qof kale binaadana oo isagu intuu soo akhriyo wax ka sheegaya waxaan u arkaaniyo discussing ma u arkaa let's respect each other احترام بينو باهناي dad waaweyn baynu nahay 10 milyan bayna daawanaya inaan isceebayn alla ina ceebay ceebayn oo ma dhinay waxaan macaa qodob kale waxaan rabaa oo yaraha tahdiidka ku jira handadaada waxaan leeyahay xildhibaanada intay hadlaan iska baxayaan oo leeyihiin halkan uma qalmato Muqdisho uma qalmato macnaha in caasimad ay ahaato amba ay ahaato baarlamaanka waxaan leeyahay tahdiidkaas waa yara xun tahay mana fiicna waxaan dhihi lahaa qofka xildhibaanka inuu yara xisoodaa fiican xildhibaanku karaamiye sharaf buu leeyahay markuu hortiina taagan yahay inaad xushmaysaanna waa qadarin meeshana ku jirta may adiga maaha dadka gacmaha taagtaagaya mudane gudoomiye ma ku dhaqantaan xeeroosaadkiiyo dastuurka waa maya baarlamaankani ma dhisnaanayo haddaanan xeeroosaadka iyo dastuurka lagu dabaqin nin kastana wuu haystaa wuuna ansixiyey dalkuna wuxuu ku socday waa dastuurka dawladda waxa ku qoran caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay tahay Muqdisho
anigu kumaan qorin xildhibaanaduna kuma qorin Soomaali baa isku raacday kuna qorotay taas gudoomiye inta halkaa la isa soo taagay in la siyaasadeeyay waa khalad caasimadani kuma jirto moran iyo gilgilis xildhibaanada sharafta leh waan isku weynahay ma kala weynin Ramaas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolal jiif oo heer sareeya holka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah Ramaas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka saaxiib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys waliba waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Soomaali Suudaneys Hospital saaxiibka bulshada SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega uma baahni telefoon walba ee waxaad u baahan tahay tayo iyo damaanad la hubo Samsung waa jawaabta baahidaada telefoon ku raaxayso maqalka iyo tayada wanaagsan ee telefoonka Samsung kana qaado nooca aad doonto ee Samsung Mobile oo wata damaanad 2 sano ah ogow hadii uu ka ciladoobo si lacag la'aan ayaa lagugu farsameynaya ama lagaaga bedelaya Samsung original